الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله سبحانه وتعالى waxaynu halkii ka sii wadi doonaa silsiladii fiqiga ee inoo socotay iyadoo hore aynu usoo qaadanay kitaabka safiinatu najaa iyo matnu lgaaya waltaqriib ama matnu abi shujaac iyo almuqadima alxadramiya iyo cumdatu saalik. kitaabka inoogu xigi doonaa sida ogeysiiska lagu arkay waa kitaabka minhaaju الطaalibiin ee uu qoray alimaam الnawowi raximah اllahu tacaala. inta aanan kitaabka gudagelin biidni اllaahi subxaana wa tacaala waxaan ka hormarin doonaa darsigeenan caawa muqadimaat fi اlfiqh, hordhacyo ku saabsan fiqiga. waxaynu ogsoonahay alfiqu inuu yahay luqa ahaan alfahmu, macnaha noocaasana ugu soo arooray qur'aanka iyo sunnaha labadaba. soomaaliya haؤulaaءi اlqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna qowla ay yafhamuun. wakadalika qowl اllahi subxaanaه wa taعaalى can nabiyihi muusa waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii ay liyafhamuu qowlii, si ay u fahmaan hadalkayga. ilaahay oo carab jalaqda iga bii buuhi. ilahay buu subxana wa tacala arrinkaa ka bari. alfiqu fi اddiin waa caam, waxaa soo gelaya aqoon iyo faham in loo yeesho masaa-isha diinta oo dhan, ama ha noqdo cilmigii tafsiirka ama cilmigii axkaamta afcaasha addoomo ay lahaayeen, amaba se ha ahaato masaa'ilka towxiidka iyo iimaanka la xidhiidha. kelimatu lfiqi marka ay nusuusta ama adilada ay ku soo aroortayna macnaha guud bay tilmaamaysaa, waa qofku inuu faham iyo aqoon u yeesho diinta islaamka ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam. erey bixin ahaan ayaa ereyga alfiqh culimadu ay u isticmaaleen cilmi ka mida culuumtii shareecada, cilmigaas oo ah cilmiga ku saabsan axkaamta afcaasha addoomuhu ay leedahay. walihaada fiqi wax lagu qeexo ama lagu tacriifiyo waxa ugu fiican in la yidhaahdo fiqigu waa macrifatu axkaami afcaali اlcibaad, macrifatu axkaami afcaali اlcibaad. addoomaha afcaashoodu axkaamta ay leedahay garashada la garto ee laga garto min alkitaabi waالsunna min alwaxy iyo wamaa yacuudu ilayhi, waxyiga iyo waxa waxyiga u noqda. waxyigu daliilnimadiisa uu tilmaamay kaalqiyaasi waاlijmaac, sida qiyaaska iyo ijmaac oo iswaafaqi culimada. taasay culimadu fiqi u yaqaaniin. marka madaahib laga hadlaayo waxaa madhab lagu tilmaami karaa wixii masaa'il ijtihaad ku dhisan culimadu markaa ay isku khilaafi karaan. masaa-isha ay nusuustu ku caddahay ama mujmacun calayha, mid la isku waafaqsan yahay ah, khilaafba aanu ka taagnayn, iyada madhab gaara looma nisbeeyo, waa madhabkii hebella lama yidhaahdo. marka la leeyahay hada madhab shaafici waxaa looga jeedaa alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu isagu sax u arkay mas'alo ka mida masaa-isha ahlucilmigu ay isku khilaafeen.
وتصال ahaan وuجوب الصلاة dee lama odhanayo waa madhabkii shaafiعي iyo وuجوب الصيام والحج وغayri ذلika من المسائل التي فيها نصوص masaaئiشha adiladu ay ku caddahay waxaa madhab lagu tilmaami karaa wixii masaa'il markaa khilaafiya ijtihaadiya oo nas aanu ku caddayn isla markaana ijmaacna aanu ku sugnayn alfiqhu fi ddiin diinta ilaahay subxaana watacaala faham in loo yeesho iyo aqoon waa arrin mansiladeedu iyo derajadeedu ay aada u sarreyso ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ku amray inaanay dhammaantood jihaadun u bixin oo duulimaad iyo dagaalun aanay aadin ay u qeybsamaan ilaa firqatayn koox jihaad tagta iyo koox cilmi doonata wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inay dadka muuminiinta ka mid noqdaan qolo iyagu markaa diinta baranaya oo faham u yeelanaya axkaamta shareecada marka iyagu marka ay bartaanna ummadda intii kala gaadhsiiya waliyundiruu qowm idaa rajacuu ilayhim lacalahum yaxdaruun nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dadku fi ljaahiliya islaamka horti inay kala wanaagsanaayeen way kala caadaad wanaagsanaayeen way kala dabeecado wanaagsanaayeen way kala akhlaaq fiicnaayeen annaasu macaadin ayuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kamacaadini dahabi walfida khiyaaruhum fi lislaami khiyaaruhum fi ljaahiliyati idaa faquhuu dadka waxaa u khayr badan marka ay islaamaan kuwii u wanaagsanaa islaamka horti laakiin shardiga ku xidhan waa maxay oo khayrka iyo wanaagga dada kale ay kaga horeeyaan ay ku gaadhayaan ay ku helayaan waa inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aqoon ay u yeeshaan waayo qofku haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aqoon aanu u yeelan oo aanu kala garanahayn xaaraanta iyo xalaasha wixii laga doonay iyo wixii loo diiday haba noqdo mid khayrka jecel oo doonaye laa shaka khayr fara badan ayaa seegaya walihaada islaamku umuu imanuun sida dadka qaarkood ay manhaj ka dhigteen in dadka la waaniyo uunoo fadaa'il ulacmaal un looga sheekeeyo oo qofka camalkaa sameeya fadligaasu helaya tarkiibka aada looga shaqeeyo weliba tarhiibka laftiisiina laga tago baqagelinteed iyadoo aynu ogsoonnahay alkhawfu waalrajaa inay laba arrimood oon kala hadhahayn oo ah laba markaa isku ladhan fi lkitaabi wasunna qur-aanka iyo xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka la eego nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u soo diray dadka inuu diinta baro isla markaana uu gaadhsiiyo xaqa noloshoodana uu ku dabaqo shareecada ilaahay u soo dhiibay huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin marka baadidii dadku ay ku jireen waxaa lagaga baxayaa qodobada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu u soo diray dacwaddiisuna ay koobsanaysay in lala wada yimaado oo dacwadduna ay koobsato qof kastoo daaciye ama mucallima arrimaha noocaasa waa in laga helo nebi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray dadka inuu u sheego o uu gaadhsiiyo waxa laga xaaraantimeeyey iyo waxa loo xalaaleeyey oo rabbi subxaana wa tacaala waa ka yihi qul tacaaluu atlu calaykum maa xarama rabbukum
waxaad tidhaahdaa kaalaya qul tacaaluu atlu maa xarama rabbukum kaalaya aan idiin sheego aan idin gaadhsiiyo waxa ilaahay subxaana watacaala uu idinka xaaraantimeeyey ka laabudda min hada taasi waa lagama maarmaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay fadliga ay leedahay in la fadhiisto xalqadaha cilmiga gaar ahaan xalqadaha lagu baranayo alxalaal walxaraam waidaa marartum biriyaadi aljanna fartacuuha buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam beeraha jannada markaad soo martaan ka faa'iidaysta buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam qaaluu yaa rasuula allahi wamaa riyaadu ljanna saxaabadu waxay rasuulka ilaahay ow beeraha jannadu waa maxay qaala xilaqu dikr nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa xalqadaha dikriga marka dikri lasoo hadal qaado dadka in badani waxay u qaataan dikriga in looga jeedo tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo takbiirta subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allahu akbar inahaasoo qura in looga jeedo dikri diintoo dhan baa dikri la yidhaahdaa waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka dikru huna addiin ilaahay subxana wa tacaala diintii oo dhan ayuu ku magacaabay dikri addikru halkan waxaaba looga jeedaa bay yidhahdeen salafku majaalista lagu baranayo axkaamta shareecada oo alimaam alkhatiib albagdaadi kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih xadiidkaa markuu keeno waana xadiid saxiixa aathaar badan buu keenay can asaxaaba wataabiciin oo tilmaamaysa macnihiisa aathaarta waxaa ka mid ah atharu cabdillahi bni mascuud oo uu tilmaamay xalaqaatu dikri inaan looga jeedin xalqadaha tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta ee looga jeedo xalaqaat lfiqh caطaa oo taabiciina wuxuu yihi majaalisu dikri iyo majaalisu alxalaali walxaraam majlisyada iyo golayaasha dikrigu waa kuwa lagu baranayo alxalaal walxaraam markaa qofka majaalistaa fadhiista isagoo isagu dadkii u dhigaya alxalaal walxaraam ama isaga oo dhegaysanaya niyadiisuna ay sax tahay waa mukhlis lilaahi subxaana wa tacaala oo ka maran waxyaabaha qawaadixu likhlaas ah waxyaabaha ikhlaaska meesha ka saara ama dhaawaca waa qof ilaahay subxaana wa tacaala xusaya wey inahu yadkuru llaha subxaana wa tacaala aladi yucallimu nnaasa alxalaala walxaraam aw yatacalamu alxalaala walxaraam waa qof ilaahay xusaya waa qof ku jira cibaado oo ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya inta majliskaasi uu fadhiyo ilaahay raxmadiisu ay dabooleyso malaa'igtu ay hareereynayso ilaahay subxaana wa tacaala uu ammaanayo oo malaa'igta wanaagiisa uu muujinayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu yidhi man gada ila almasjidi laa yuriidu ila an yatacalama khayra aw yucallimahu kaana lahu kaajri xaajin taaman xajatuhu qofka masaajidka taga isagoon ujeeddo kale lahayn inuu khayr soo barto ama dadka inuu baro khayr mooyaane wuxuu helaa ajarka uu helo qofka xajiyey weliba xajkiisu uu dhammaystiray arrintaasi waa arrin u baahan istixdaar cinda التdriisi aw الdaraasa cinda الtacliimi aw الtacalum qofku marka uu cilmi dadka u dhigaayo ama isaguba uu dhiganayo oo uu tegayo uu fadhiisanayo goobta cilmiga lagu baranayo waa inuu qalbigiisa arrinka noocaasa uu kusoo xaadiriyo oo arrinkaasi uu ka dhigto arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhowaanayo taasi manaafic badan bay leedahay manaaficda waxaa ka mid ah in ilaahay subxana wa tacaala sacyigiisa uu barakeeyo haddii uu wax dhigayo iyo haddii uu dhiganayaba waxaa ka mid ah in arrinka noocaasi qofka ikhlaaskiisa iyo niyad wanaagiisa uu xoojiyo waxaa ka mida alistimraar
على تعليم الخير أو تعلمه qofku inaanu ka caajisin inta niyadaasi ay joogto waxay u yeelaysaa qofka dardar iyo niyad fiican oo u hayo cilmiga dhigistiisa iyo dhigashadiisa marka ka caajisi maayo laa yanqaطic can tacliimi اlcilmi aw tacalumihi cilmigii dadka inuu baro ama inuu barto ta kale yastaciinu biاllahi calى dalika arrinkaa ilaahay bu subxana wa tacaala uu kaalmaysanaya waxyaabaha fadlu اlfiqhi fi اddiin muujinaya waxaa ka mid ah isla markaa darajadiisu inay saraysana caddaynaya xaajaة الnaas ilayh fiqiga oo ah fanigan sida gaarka culimadu fiqiga ay ugu bixiyeen mansiladiisa iyo darajadiisa waxaa muujinaya baahida loo qabo baahida loo qabaana tacriifkiisa ama qeexistiisa ay ka muuqata macrifatu axkaami afcaali اlcibaad addoomuhu waa faaciluun ama way hadlayaan ama waxay samaynayaan xubnahooda wax ka samaynayaan ama waxbay ka tegayaan yakufuuna canhu ay ka istaagayaan ama xagga qalbiga ay ka shaqaynayaan oo ay go-aamo ka gaadhayaan fiqigu afcaasha weliba aan istaagahayn ee aadka u tirada badan jiraysana inta insaan uu jiro axkaamta ay leedahay ee saxda ah ayuu caddaynaya taasina waxay muujinaysaa baahida qofku sida gaarkaa fiqi uu ugu qabo iyo baahida guud ahaan ummaddu fiqiga ay u qabto walihaada bal u fiirsa adigu akharu maa yasalu canhu الnaas huwa اlfiqh waxa u badan ee dadku culimo ay weydiiyaan waa axkaamu اlafcaal ama ha ku saabsanaato cibaadaadka ama ha ku saabsanaato mucaamalaadka ama ha ku saabsanaato jinaayaadka iyo waxyaabaha la halmaala weydiintoodaasina waxay tusinaysaa masaa-isha axkaamta alihi siday dhexdooda ugu badan tahay iyo baahida ay u qabaan marka shayguna mar hadduu yahay shay aada loogu baahan yahay oo aan laga maarmi karin waa shay qiimale mansiladiisa iyo darajadiisuna ay sarrayso fiqigii in la barto axkaamta afcaalu lcibaad in la bartaa waa waajib waxaana u daliila adilada waajibinaysa cilmiga barashadiisa sida xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam طalabu اlcilmi fariidaة calى kuli muslim laakiin waajibkuun baa laba u kala baxaaya waxa qofku habeen iyo maalin kasta uu u baahan yahay isagu waa fardu cayn waa faral isaga si gooniya u saaran inuu barto ama uu fadhiisto ama ahlucilmiga uu weydiiyo sida ilaahay subxana wa tacala uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wixii markaa isaga si gaar aan ugu tacalluqinina waa fardu kifaayo in ummadda ugu filan oo kaalintaa buuxin kartaa waa inay barato maantana waxaynu ogsoonahay haddii alcaalam alislaami la eego in la odhan karo ummadda waa ugu filan yihiin shaqadaas kaalintaana waa buuxiyeen oo cilmigaa baratay ma jirta ayaa la odhan karaa marka inuu fardu kifaayo noqdaa cidhiidhi baabay soo gelaysaaba marka uu xaalku sidaas yahay fiqiga marka la baranayo waxa iska cad gaar ahaan intii madaahibta la diiwaangeliyey inay jiraan laba dariiqo dariiqaani litafaquh laba dariiqoo loo maro barashada fiqiga dariiqada koowaad waa atafaquh can طariiqi axaadiiثi alaxkaam wa aayaati alaxkaam oo qofku fiqigii inuu barto isagoo u maraaya axaadiiث alaxkaam inuu barto waynu ognahay culimadu inay gooni u diiwaangeliyeen oo kutub badan laga qoray sida waxa weeyaan almuntaqى buluuq اlmaraam cumdaة اlaxkaam iyo kuwa kale ee la midka ah
تسوى طريقة معروفة وحويان ترتوي dad ku tafaqquhayna waa jiraan kana fiicnaaday dadkii fiqiga barashadiisa u maray barashada iyo dhigashada mutuunta fiqiga ee madhabiga ah qofkii dariiqada marana laa yudamu walaa yulaamu calayh lama dhaleecaynayo lagumana canaananayo dariiqada labaad waa tafaqu can ariiqi lmutuun alfiqhiya waa in fiqiga barashadiisa loo maro in la dhigto mutuunta fiqiga ah mutuuntaasi oo madaahib u badan shaaficiye ha noqoto ama maalikiya ama xanafiya ama xambaliya oo madhab kasta dee mutuun buu leeyahy waxaa kaloo uu leeyahy dee maraajic waaweyn oo loo noqdo oo masaa-isha laga baadho marka had iyo jeer dee maraajicda lama dhigto mutuunta ayaa marka hore la dhigtaa oo la fahmaa kadibna maraajicda ayaa loo noqdaa oo dee baxhi loogu noqdaa ama mutaalacaba in la daalacdaba cilmiga la kororsado labada dariiqo allahu aclam waxaa la odhan karaa gaar ahaan waktiyadan dambe fi اlasminati اlmutaakhira waxaa sahlan oo nafci badan التفقه عن طريق المتون الفقهية فقهiga barashadiisa loo maro dhigashada iyo barashada kutubta markaa matniga ah ee fiqiga laga qoray waxyaabaha taa fadilaya waxaa ka mida kutubu axaadiiث الأحكام had iyo jeer ale waxay sheegtaa nooc ka mida adiladii axkaamta oo adee alaxaadiiث halka mutuuntan fiqiga masaa-isha ku taalla ay tahay mid laga soo dheegto laga soo qaatay adilo kala duwan min alkitaab alaxaadiiث ijmaac qiyaas waxa weeyaan istinbaataat iyo tacliilaat iyo adiladii kale ee mukhtalafii ahayd mid la isku khilaafsan yahay arrinka labaad ee dariiqada fadilaya wuxuu yahay kutub اlfiqhi ama kutubu almutuun اlfiqhiya almutuun اlfiqhiya masaa-ishii bay sheegtaa iyada oo masaa-ishii fiqiga ahayd oo ratiban arrinka saddexaad annaha ajmacu limasaa'il اlfiqh oo kutubu axaadiiث اlaxkaam masaa-ishii axaadiiثu ay ku cadayd unbaa inta badan ku qoran wax markaa cidda sharaxday sharaxa ay ku keento ee haleeshiisa mooyaane laakiin mutuuntan fiqiga masaa'il badan baa ku qoran oo mutuuntu kole waa kala badsataa waxaa kaloo fadilaya dariiqadaas mutuuntaasi waxay sheegtaa shuruuddii iyo waajibaadkii iyo mustaxabaadkii qaarkood qaab markaa dawaabida ay u dhigaan arkaantii shaygu uu lahaa saas oo kale marka dhinacyadaas oo dhan marka laga eego waxaa la odhan karaa dariiqadaasa ashala oo in adilada axkaamtii toos looga qaataa waa mid awood badan u baahan oo qofku inuu luqadii qawigu ku yahay usuul fiqigii culuum اlaaliyi musطalaxii iyo kuwii la midka ahaa laakiin tan waxaa la odhan karaa waa la bisleeye baa la odhan karaayo waa la diyaariyey dadku marka la eego dhigashada mutuunta fiqiga ah ee inta badan ku socota calaa madhab min almadaahib waxaa la odhan karaa waa طarafaani wawasط laba dacal iyo dhex weeye laba qolo oo dhinacyada maray oo waddadii saxda ahayd ka baydhay iyo qolo waddada saxda ahaya darafka koowaad waa haalin fiiha waa kuwo guluwi ku sameeyey oo mutuuntaasun dhigashadeeda iyo dhigisteeda ku celcelinaya oon uba dhaafahayn maxaa u daliila horta mutuunta marka dambena lagaba yaabo inay ictiqaadaan annaha hiya daliil in iyadu daliilkii tahay oo marka la idhaahdo ma daliilu calaa hadi lmasala idhahdo qaala fi lminhaaj ama qaal fi lmukhtasar ama qaal
kitaabkii waxa weeyaan uu sheego adiladaba ka madhnaa ee uu ku qoraa fiqiga waxa weeyaan mustanbadka ah tacasub badanna u muujinaya oo matniga iyagu ay ku tafaquheen ama fiqiga ay ka barteen kaasuu tacasubaya mar walba ka saxdii kaasuu yahay darafka kalena waa darafka jafaaga ku sameeyey oo laga yaabo kutubtaasi fiqiga culimadu ay ka shaqeeyeen masaa'isha badan ee kumanaanka ay ku taalo inay qiimo leedahay inaanu arag oo laga yaabo inay xaqiraan hoos ay u eegaan cidda dhiganaysana mararka qaarkood lagaba yaabo inay kuba dhaleeceeyaan ay uba arkaanba inuu yahay qof bidco la yimi amaba se dembaabay wasadku waa maxay qolada dhexe sida saxda ah waa in ujeedada mutuunta loo dhiganaya ay tahay in masaa-ishii fiqiga ahayd la suuraysto tasawur almasaa'il alfiqiya in la suuraysto masaa-ishii fiqiga ahayd oo tartiibteedii la ogaado iyo see u kala horeyso la barto shuruuddeedii iyo wixii la halmaala iyadoo aan markaa loo arkahayn qowlka sheekha kitaabkaa qoray inuu isagu daliilka yahay aan loona tacasubahayn mar walba qofku uu aaminsan yahay ana kula yu'khadu min qowli wayutrak ilaa rasuulullah qof walba qowlkiisa in waxna laga qaato waxna laga tago daliilka waafaqana waa la qaataa wixii khilaafana waa laga tagaa nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa uu xujo ahaa un dada kale hadaladoodu xujo maaha mar haddaanay arrintu ijmaac iyo iswaafaqu culimo aanay gaadhsiisnayn waxaa kaloo ay samaynayaan in masaa-ishii ay adiladeedana ay ogaadaan oo maxaa raajixa oo xoog badan masaa-ishii la isku khilaafay qolaba daliil ay daliishatay maxaase laga xoog badan yahay marka wixii ay u arkaan inuu daliilku xoojinayo ay qaataan sawaan waafaqa almadhab am khaalafa ama arrintaasi madhabkii ha waafaqdo ama madhabkii ha khilaafto lianna allaha lam yatacabad innaasa bimadhabin mucayan ilahay dada kuma addoonsan madhab gaara inay raacaan ilahay wuxuu dada ku addoonsaday inay waxyiga raacaan ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliyaa mana jiro madhab la odhan karo waxyigii ilaahay uu soo dejiyey kaasun buu ku urursay wixii la isku khilaafay madhabkaasun baa waxyigii ku waafaqay madaahibta kale oo dhami way khilaafeen hada laa yujuuz walam yaqul dalika axad min ahli اlcilmi waاlinsaaf qof mutacasiba oo xaqa iska indhatiraya mooyaane cid cilmi iyo cadaalad iyo xikmad ku shaqaynaysaa horeyso iyo dambeyso sidaasi may odhan masaa'ilka muhimka waxaa ka mida taa hore sii xoojinaya mima yajibu an yuclama annahu laa yumkin an yajtamica alxaqu fi madhabi mucayan waxyaaba ay waajibka tahay in la ogaado waxaa ka mida in aanay suurtagal ahayn inuu xaqu ku ururo madhab mucayana wixii masaa'il la isku khilaafo wahada biijmaci اlculamaa gayru waaxid min ahli اlcilm ayaa masaladaa ijmac kusoo naqliyey madhab mucayana xaqu kuma ururi karo aimada laftooduna taa waa ka markhaati fureen qowl ahaanna waa uga markhaati fureen ficil ahaanna waa uga markhaati fureen ficilku wuxuu noqonayaa intiqaalaadka ay sameeyeen fi lmasaa'il alfiqhiya oo masale uu odhan jiray uu ka noqday wuxuu uga noqday ma aha ujeeddo kale ee marka horena saasuu sax u arkaya marka dambena saanuu sax u arkaya imaamu shaafici waxaynu ognahay inuu leeyahay madhab qadiima iyo madhab jadiida inuu leeyahay qofka markaa isku daya in madhabun uu rajaxo oo dadka u muujiyo xaqu mar walba inuu madhabkaas ku jiro ku doonayaba ha noqdo madaahibta fiqiga
shay kuma jiro qofkaasi inuu adilo badan khilaafi doono min alkitaabi wasunna in badanoo fiqigii saxaabada ka mida inuu daadin doono shaki kuma jiro annahu sayakuunu mutabican lihawaa inuu noqon doono qof hawadiisa raaca mararka qaarkood waxaa u muuqanaysa mas'aladan sidan madhabku uu qabo inuu daliilku khilaafsan yahay marka hadduu madhabkii uu rabo inuu xaq ka dhigo waxaa laga yaabaa daliilkii oo saxiixa xadiid saxiixa inuu daciifiyo intisaara lilmadhab nusrayn madhabka u nusraynayo u hiilinaya ogeed amaba se taawiil baciida oo fog tafsiir aada daahirka xadiidka uga fog ama aayadda inuu saaro suu madhabka u waafajiyo ee madhabkiibu asal ka dhigaya marka adiladiina wuxuu ka dhigayaa taabica lilmadhab mid madhabka daba socota ayuu ka dhigayaayo daliilkiibuu isku dayayaa inuu madhabka waafajiyo halkuu madhabka daliilka ka waafajin lahaa halka daliilku uu maray uu madhab ka dhigan lahaa arrinta noocaasi waxay sababaysaa inuu mararka qaarkood marka uu ku dhaco dulmi iyo tacasub oo cid ay u muuqato inay cala alxaq yihiin uu ku tilmaamo inay yihiin cala albaatil arrinta noocaasiina inta badan waata keentay tacasubaadka madhabiga ama ha la idhahdo afarta madhab lagama bixi karo ama qofku madhab gooni oo afartaa ka midaba ha ku dhege see loo odhan karaa afarta madhab lagama bixi karo iyadoo aynu ogsoonahay culimadu afartaa caalim inaanay ku urursanayn bal aynu ognahay fuqahaau saxaaba axkaam ay ka hadleen oo ay ka fatwoodeen oo asaaniiddeedu ay ansaxday in laga yaabo afarta madhabba inay khilaafaan marka man waafaqa aلصaxaaba aw صaxaabiya min aلصaxaaba oo cid kaloo khilaaftayna aanay jirin ama haba jirtabe oo afarta madhab khilaafaa ma uu dembaabay baa la odhanaya haddii la idhahdo afarta madhab lagama bixi karo ta kale imise caalim baa ka horeeyey afarta imaam ama la wakti ahaa ama ka dambeeyey oo qaarkood ay la cilmi ahaayeen amaba se ay ka cilmi badnaayeen afarta imaam ay ka cilmi badnaayeen maziyada afarta imaam ay leeyihiin aan la dafiri karin waxa weeye in fiqigoodii la ururiyey oo la tartiibiyey oo loo adeegay oo laga shaqeeyey laa shaka inay maziyadaasi ay leeyihiin waana taa aynu u nidhi waxa weya mutuuntaa fiqiga ee makhduumka ah marka horena la qoray marka dambena loo khidmeeyey fiqigii in lagu barto ayaa fiican lakin laysa macna hada ana alxaqa laa yakhruju canha taa macnaheedu ma aha xaqu inaanu ka bixin macnuhu maaha masaaئisha muhimka waxaa ka mida waxaa muhima qofku fiqigii markuu baranaayo an yatasawar almasaa'il intaan horta daliiliya aan la gaadhin qofku waa inuu mas'aladii suuraysto suurada iyo xaqiiqada mas'alada waa inuu fahmo suuraة اlmasأala waana sida kutubtan mutuuntan fiqiga ay u dhigaan qofku masaladii haddaanu markaa fahmin suuradeeda iyo xaqiiqadeeda dee xukumka uu saaro wuxuu noqonayaa xukum aan meeshiisii dhicin alxukmu calى shay farcun can tasawuri fiqu lwaaqic baa loo baahan yahay waaqica mas'alada iyo suuradeeda in la fahmo intaan xukum ay leedahay aan la sheegin masalada marka la suuraysto waa in daliilkeeda la garto oo hadduu qofku doonayo dee inuu noqdo qof faqiiha ila faqiih lagu noqon maayo oo qura in masaa-isha fiqiga ee mutuunta fiqiga ku taalla la suuraysto intaasoo qura faqiih lagu noqon maayo hada laysa waxdahu fiqhan intaasoo quri fiqi maha laabudda min macrifati daliili اlmasأala daliilkii masalada waa in la garto maxaa u daliila ma aaya xadiid ijmaac ma qiyaas ma masalada ma tacliil bay ku dhisan tahay oo isaguna dee nooc istinbaata ah daliil caama laga soo istinbaatay ama qawaaciddii iyo maqaasidii shareecada loo eegay daliilka laftiisu wuxuu u baahan yahay in la eego
waxyaabaha dee hadda aad ku arkayso kutubta fiqiga waxaa ka mida iyadoo axkaam laga hadlayo xalaal iyo xaaraam inaan in badan oo fuqahada ka midii aanay ihtimaam siin oo xil aanay iska saarin axaadiiu miyay sugan tahay mise ma sugna waad arkaysaa axaadiid mawduuca oo masaa'il lagu dhisaayo ma axaadiid waxa weeyaan daciifa ama daciif jiddan ah oo masaa'il lagu binaynayo marka waxaa ka mida dadka manhajka saxda ku socda calaa manhaj salaf inay xataa xagga fiqiga salafiyiin ka yihiin oo aanay waxa weeyaan kulu baydaa laysat cindahum shaxma kulu sawdaana maaha tamra bal yunaqixuuna almasaa'il arrinta noocaasa culimada iyo dalabatulcilmiga aadka ugu caan baxay waxaa ka mid ah ee duruustooda iyo kutubtoodaba ay ka muuqato ahlulyaman oo ahlulyaman laa yaxtajuuna ilaa maa yarawnahu صaxiixa bacda taxqiiq masaa-ishaa diinta uma daliishadaan xadiid ay saxiix u yaqaaniin mooyaane markay taxqiijiyaan dabadeed waa la isku khilaafi karaa sixat اlxadiid iyo dacfigiisa lakin de horta aslu mas'ala waa inuu jiro qofku waa inuu xil iska saarayo garashada xadiidkani ma saxiix baa nebiga uu ka sugnaayo mise waa daciif bal fiqigooda waxaa ka muuqata xataa taxqiiq اlaathaar waxaa jirta aqwaal badan oo saxaabada laga soo wariyo kutubta fiqiga ku qoran oo laga yaabo fuqahada qaarkood masaa'il ba inay ku bineeyeen wakadalika aqwaal ma'huura can الtaabiciin aqwaal baa jirta taabiciinta laga soo naqliyey oo mashhuur iska fi kutub اlfiqi dhexdeed laga yaabo sanadkeeda inay ku jiraan kadaabuun ama matruukuun oo aada iyo aada daciif u ah marka taxqiiqa noocaasi ahi aad buu muhim u yahay masaa-ishii fiqiga ahayd waxay noqonaysaa mid ku dhisan daliil saxiix daliilka waa in la garto wajhu dilaala siduu masaladan u tusinaya dee qofku dhaa masalada suuradeedu waa sidaa aayaddaasaa u daliila sida aayaddu daliil ugu tahay iyo qaabka u tusinaysana aanu garanahayn qofkaasi ma aha qof dhab ahaan fiqi bartay waa marxaladiis waa marxaladii cawaamta uun waa sheekha ayuunbuu maqlo sidaa le siduu masaladiina sidii ayuunbuu ku qaatay masaaisha muhimka waxaa ka mida in badanna aan baraarujiyo alihtimaamu bifiqi الصaxaaba صaxaabada fiqigooda waa in xil weyn la iska saaro waxyaaba min garaa'ib اlumuur waxaa ka mida in qofku fiqigii صaxaabada aan waxba ka soo qaadinba oo haddii la dhahdo ibnu cabaas baa masaladaasa ka fatwooday haddii la shaafici baa ka fatwooday shaafici baa fatwooday baa la weyn isaga ibnu cabaas baa fatwooday waxa weeyaan kala weyn الصaxaaba ridwan اllahi calayhim tafaqahuu fi kitaab الlah wa fi sunati rasuuli الlahi salى الlahu alيه wasalam lamana odhan karo saxaabadu fiqi kamay hadal waad ogtihiin kutubta laga qoray aahaarta saxaabada sida musanaf cabdirazaq musanafu cabdirazaq iyo musanafu bn abi shayba الsunan lsaciid bn mansuur wakadalika الsunan اlkubrى lilbayhaqi almuxala libni xasmin almuxala biاlaahaar libni xasm waxaa ku qoran hadallo axkaamta ku saabsan oo saxaabada ridwan ullahi calayhim laga soo wariyey aimada laftooda aimadii hore ee madaahibtan loogu abtiriyaa saxaabada ridwan ullahi calayhim fiqigooda aad bay ihtimaam u siin jireen alimaamu axmed raximah اllahu tacaala arrimaha markaa laga sheega waxaa kamid anhu ma kaana yakruj can aqaawiili الصaxaaba aqwaasha saxaabada inaanu ka bixi jirin waxyaaba markaa sababay inuu mas'alo qura riwaayaat ku yeesho riwaayataan aw halaaثu riwaayaat aw arbaca aw khams ayay culimadu ay ku daraan waxaa riwaayaadka u yeeshay aqwaal الصaxaaba tacadadat fi اlmasأala waاkhtalafat waa asbaabta mid ka mida weeye kaasoo qura maahay alimaamu shaaficiyu raximah اllahu tacaala wuxuu odhan jiray hadal dheera uu ka mid ahaa wa aaraahum lana axmed wa أwlىa
بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. saxaabada aaraadooda yani masaa'isha ijtihaadiga wixii ay ka yidhaahdeen ayaa ka wanaagsan oo ka mudan oo nooga fiican aaraadayada iyo waxa annaga waxa weeyaan noo muuqday. marka masaladaasina waa masalo muhiima weeye. التفقه في الدين wuxuu leeyahay rakaa'is arrimo uu ictimaadayo uu cuskanayo. man araada an yatafaqaha fi الدين وأن يتعلم الفقه فلا بد له من هذه الأمور. الرمانة لقوا مارمانه. الأمر الأول هو الإخلاص وأصل الأعمال وأساسها. qofku waa inuu isweydiiyo limaada atacalamu alfiqh fiqiga maxaan u baranaya. ujeedada qofku cilmiga u baranaya waa inay noqoto an yanfaca bihi nafsahu inuu naftiisa ku anfaco barashadiisana ajar uu ka helo inuu ku camal falo oo axkaamta ilaahiga ah nebi maxamed ilaahay subxaana watacaala uu soo dhiibay inuu noloshiisa uu ku saleeyo oo ku camal falo. wakadalika inuu nafci ummadana u yeesho oo dadkana uu ku anfaco an yuslixa bihi nafsahu wa an yuslixa bihi gayrahu. waa inay niyadiisu waxa weeyaan ay noqoto. waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha niyadda xumeeya sida inuu dadka xaggiisa u soo jeediyo dadku isaga ay daba socdaan dada kula murmo inuu ku faano inuu waxa weeyaan qayrkii iskaga celiyo waxyaabaha noocaasa waa inuu iska ilaaliyo niyadiisa uu ka fogeeyo. arrinka labaad tasliimu lilahi walirasuulih. qofku markuu fiqigii baranayo waa in mustaslim lilahi walirasuulih u noqdo. arrintaas waxyaabo badan bay dawo uga noqonaysaa. waa inuu yahay qof ilaahay u hoggaansan iyo rasuulkiisa. waxay u caddaatay inuu yahay xukumkii ilaahay ama xukum rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday wax kale inaba waa inaanu ka hormarin. suu yihi alimaamu shaafici raximah llah waxay culimmadu isku waafaqeen qofka sunnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam u caddaado inay xaaraan ka tahay inuu sunni nebiga ka tago oo wax kale u qaato. arrinkaasina waa arrinka ilaahay subxaana watacaala uu ina amray atasliimu lilahi walirasuulih. wixii ilaahay uu xukumo ama nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ka sugnaado qofka muslimka waa inuu hoggaansamo. wama kana limuminin walaa mu'mina ida qada allah warasuuluhu amra an yakuna lahum اlkhiyaratu min amrih. inuu wax kale ka doorto qofku waa inuu iska ilaaliyo. inuu xaqiga u caddaaday bidaliil ugu caddaaday wax kale inuu ka doortaa waa itibaacu lilhawa. waa qofku hawa raacnimo uu la yimi weeye. waana arrinka ilaahay uu ka digay subxaana watacaala walaa tattabic ilhawa hawada ha raacin. yani naftu waxa ay doonaysa ay jeceshahay xaqa khilaafsan ayaa hawo la yidhaahdaa. arrinka waa inuu aada uga digtoonaado. arrinkan wuxuu dawo uga noqon inuu hawo raaco. wuxuu dawo uga noqon tacasub inuu sameeyo. wuxuu dawo uga noqon doonaa xataa waxyaabaha ikhlaaska fasahaadiya oo uu ka mid yahay طalabu ri'aasa inuu qofku fiqiga barashadiisa madaxtinimo uu ku doonayo. waxaa ka mid ah arrimaha lagama maarmaanka salaamatu lmasdar. qofku marka uu fiqi baranayo waa in masderku isha uu fiqiga ka dhaansanaya waa inay ilbad qabta tahay oo sax oo alkitaab oo si saxa loo fahmo الsunna oo inta صaxiixa axkaam lagu bineeyo alaathaaru salafiya hadallada laga soo wariyey salafkii saxaabadii iyo aimadii wanaagga ku raacay. kadalika qawaacidda lafteeda ama qawaacid usuuliya ha noqoto ama qawaacid fiqiya ha noqoto waa inay noqoto qawaacid saliima oo iyada lafteedu adilo saxa ku dhisan. oo masaadirta waxyaabaha fiqiga adilo looga dhiganayo meelaha laga qaadanaya oo waxyaabaha qofka fiqigiisu fiqi sax oo adiladii waafaqsan inuu noqdo ama mid khilaafsan inuu noqdo waxyaabaha dowr weyn kula wey ee aada iyo aada uga qeyb qaadanaya.
marka la baranayo fiqiga mutuntan fiqiga gaaraan madhabiga laga baranayo arrimaha muhiimka waxa kamid ah macrifatu almustalahaat wa in la barto erey bixinta wa inta badan kutubtii hore fiqiga ahayd ma aanay sheegahayn mustalahaadka erey bixinta fiqiga oo madhab kasta wuxuu leeyahay erey bixin gaar ah erey bixintana culimadu si gaar ah bay xil isaga saaraano kutub baa laga qoraa kutubta waxa weeyaan qaarkoodna muqadimaadkoodii hordhacooda lagu sheegaa qofku haddaan mustalaxii fahmin maqsuudkii hadalka fahmi maayo لهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى سينارك دون كتاب كان وحكم بلا بوحويا مصطلحات ربحين كتاب كان حيابا دحيودا كجيرا ربحين وسمي سقفكو هذا وتولا marka yariyadaas kitaabka ay ku soo maraan waxa loola jeedo uu fahmo وكذلك كتابك waxa weeyaan المجموع مقدمتي سنه arrimo badan oo fiqiga iyo barashadiisa ku saabsan أيها الإمام النووي رحمه الله تعالى وكت الماضي كمصطلحات كائن لفهمانا آدي بين مهم الطهي إلى بين سبحانه وتعالى ويدي سنة إناين خيرك وناقين نوافتشيه أرنك أوضا بين فرق بأول حياة أقواش أي مدى أفرتاي أقواش أصحاب تودا وحلقا يا أبادتك غاركود إنه وهيستا وحكستوكو قرآن كتب تليرادو فقه الشافعية أما الفقه على مذهب الإمام الشافعي إنه يا أقواشي الشافعي مرارك قاركود وحب مذهب وح قول كإمام كبان هين ولا التخريجية لقو التخريجية معنا لقو دول ديساي لقو دول بنايي أما لو مسألة كلا دون وحو كفت وضي إلا قصوا صاري وحويان قول أمام مسألة ديتنا لو نسبي mararka qaarkoodna waa waxyaabo aimada taakhiriinta ee madhabku ay ku ijtihaadeen walihaada yaan la moodin wax kasta oo ku qoran kutubtan inuu yahay qowlkii shaafici raximah allahu tacaala shaafici masale kasta dee kama hadal masaa-isha markaa nas laga hayaa marka loo eego masaa-isha kale dee masaa-isha kale ayaaba badan ee la odhan karo ama aimada mujtahidiintaaba usuushiisii intay isticmaaleen dabeetana masaa-ishaa ku ijtihaaday ama masaa-ishaasi waa mukharaja calaa madhabihi ama calaa aqwaalihi markaa taas lafteeduna waa masalo u baahan in lagu baraarugsanaado oo in imaamu shaafici raximah allahu tacaala waxaanu odhan loo nisbeeyo ayay taasina dawo ka tahay insha allahu tacaala dersiga waxaynu bilaabi biidn illahi tacaala aynu muqadimada aynu ka bilaabi doonaa درس هبين ضمن بإذن الله سبحانه وتعالى وقت كانوا كلا